بسم الله الرحمن الرحيم كسو dhawaada cashirka 42 ee C++ ka waxaan hore u soo jirnay inheritance-gii ama typeska inheritance-ga sida single inheritance level-iska single level inheritance multi level inheritance multiple inheritance cashirkan waxaan kusoo qaadanaynaa labada qaybood ee ugu dambeysay ee ah hierarchical inheritance iyo hybrid inheritance labadaas aan kusoo qaadanaynaa waxaan samaystay class base class ah marka koowaad waa inaan fahanaa hierarchical inheritance maxaa la dhahaa sidaan ognahay single inheritance markaan soo qaadanaynay waxay ahayd hal base class iyo hal derived class multi level inheritance-ga base class-ka wuxuu data siinaa derived class-kana wuxuu data siinaa class kale oo asagana data kasii dhexlaayo multi level saasay ku noqonaysay multiple inheritance-ga wuxuu ahaa hal derived class ayaa wuxuu lahaa laba parent class ama laba base class uu lahaa iyo waxa kasii badan hierarchical inheritance-gana waxay noqonaysaa hal base class ayaa wuxuu data siinaa laba driver class iyo wixii kasii badan waa inaad la socotid hierarchical inheritance haddii aad maqashid waxaa la dhahaa hal base class ayaa waxa uu data siinaa labo driver class iyo wixii kasii badan ayuu hal base class data siinaa marka waa inaad fahamtid waa base class-kii aan samaysanay base class-kan wuxuu data siin doonaa laba driver class oo samayn doono isaga marka wuxuu qaadanaa x iyo y-dan get value oo function ah functionka waxay access gareynaysaa ama qiimo siinaysaa x iyo y wax kale ma qabanayso inaad fahamtid okay waxaan sameynaa marka driver class-ka koowaad aan sameynaa waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale driver class-ka waxaan u bixinaa oo kale driver class okay driver class 1 ayaan u bixinaa okay saa u fahamtid colon ayaan leeyahay wuxuu dhaxlaa public ahaan wuxuu u dhaxlaa base class-kan waxaan leenahay base class okay datada wuxuu ka qaadanaa base class-kaas aan dhahno marka public muxuu ahaa aan ka dhigno waxaan class-kan ku dhex sameynaynaa marka result tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay result-gan waxay inoo qaabilsan tahay isku daraa kala sameynaynaa program fudud aan sameynaynaa wax adag ma sameynayno sababtoo ujeedkeena waxa uu yahay inaad fahamtid hierarchical inheritance inaad fahamtid maahan program dheer inaan qorno ama program logic inaad ku wareertid maaha programkan wuxuu dhaxal class-kan lagu sameynaa ama base class-kan waxaa dhexlaayo laba driver class la soco kii koowaad waa kan haddaa qoraynaa result-gan markaan sameyno waxaan ku sameynaynaa x iyo y-daas addition tusaale waxaan leenahay addition functionkan addition waxay noo qaabilsan tahay inay muxuu ahaa isku darto labada data tusaale ahaan waxaan leenahay result waxay ku store gareysmaysaa x iyo y la isku daray x iyo y la isku daray x iyo y-dan waxaa laga soo qaatay base class-kan koowaad laga soo qaatay base class-kan laga soo qaatay waxaana soo qaatay driver class-ka koowaad soo qaatay muxuu sameynaa marka addition uu sameynaa addition markuu sameeyo result-gan ku store gareynaa result-gaas aan daabacanayna waxaa leenahay c out addition leenahay addition of x and y wuxuu la mid noqonaa result-gan daabacina okay result aan leenahay intan end line aan sameynaa si wixii hadhood ka dambeeya line cusub ay ugu bilowdaan marka waa qaabkan wuxuu sameynaa marka result-gaas ku store gareynaa x y markuu isku daray x y-dan wuxuu ka qaatay base class kala soo mar walba class-kan marka waa driver class-kii waa marka waana kii koowaad mid labaad inaan sameyno oo inta meeshan waxaa laga rabaa inaan public si fiican u qorno public markaan dhahno base class-kii inaan qorno kabacdi aan qorno dabcan ugu tirma malena markaa qorinay fadlan haddii meeshaan error marka hore iga socotay ka qaldamay inta soxo driver class-ka markii aad class soo declare gareysid oo dhahdid magacii class-ka soo qaadatid kulan dhahdid publican oo access specifier-kii ahaa ama feasibility-ga ahaa kabacdi waxaa ku xigo base class-kii oo datada ka dhexleysay kabacdi waxaa ku xigo curly braces afresa sidaas ay noqonaysaa kanaan soo qaadanaa marka class-ka driver class koowaad waaye mid kale aan sameynaa marka waxaan u bixinaa marka driver class 2 ayaan u bixinaa okay driver class 2 isla base class-kii ayuu data ka dhexlaa hal base class labadooda data ka dhexlaayaan result-ga sidii meesha igu taalaa laakiin intaan waxaan u bixinaa subtraction isaga wuxuu sameynaa marka uu kala jaraa datada program aad u sahlan qoraynaa wax adag ma qorayno intana waxaan leenahay subtraction okay result-ga ayuu daabacaa marka programkan
hadda waa una dhammaystiran yahay. waxaan rabnaa kaliya inaan sameyno hadda objectiveskii laba driver class ay noo samaysan. driver class 1 uu base classka daatada ka dhexlaayo iyo driver class 2 oo base classka daatada ka dhexlaayo. labadooda mid walba wuxuu sameynaa addition iyo subtraction. kan wuxuu sameynaa 1ka addition ayuu sameynaa, result uu ku store gareynaa, resultiga la daawacaa. kana wuxuu sameynaa subtraction, result uu ku store gareynaa. labadan result way kala madax banaan yihiin, macnaha laba class ay ku kala jiraan, caadi scope-kooda kala duwan, caadi u isticmaali kartaa result 1 result 2. objectives kan sameynayna marka object markaan sameynayna marka waxaad sameynaysaa laba object oo ka kala turjumaya labada driver class bisa u baahan tahay. tusaale driver class 1ka objectgiisa sameynaa, object 1 oo bixinaa. okay, object 1 kan waxa iska leh driver classka koowaad iska leh, uu ka madax banaan yahay mid kale la soco. waxaan sameynaa mid kale driver class 2 ayaan sameynaa, objectgiisa object 2 ayaan u bixinaa. inta ku wareeri la soco laba object ayaa sameysay. object 1 kan waxa iska leh driver class kan koowaad ka iska leh, object 2 kan waxa iska leh driver class kan labaad iska leh. mid walbana waxaa lagu access gareyn doonaa base classka goonidiisa ama si khaas ah ama si gooni ah ayuu u access gareynaa. marka tusaale object 1 aan soo qaatay, dot ayaan dhahay. fiiri meeshaan dot markii aan dhaho waxaa ii soo baxayso additionkii oo ahaa driver classka koowaadka additionka uu sameynayay, functionkan oo daatada lagu access gareynayo oo muxuu ahaa ku access gareynayno base classkii iyo x y d base classka ah iyo resultigan. intaas ay soo baxayso. marka koowaad waxaa u baahanahay get value in access gareeyo, base classka inaan access gareeyo, x y d inaan qiimo soo siiyo. marka hore get value markii aad dhahayd automatically functionkan la execution lagu sameynaa. functionkan execution sameynaysaa get value markii aad dhahdid. ujeedka waa saas. marka sababta oo horumarino waa iyada saas. kabacdi marka la soo celinayna object 1 ayaan leenahay dot addition ka haduu sameynaa, marka isku darkii haduu sameynaa. sidaan waxaa ku sameysay driver class 1 kii howshiisa ayaad ku dhameysay. okay, driver class 1 ka ayaa howshiisa ku dhameysay. driver class 2 ga ayaa waxaa leenahay isagana driver class 2 ga ayaana sameynaynaa. object 2 gu iska leeyahay isagana dot markii aad dhahdid get value in access gareysid. waa sababtoo ah daatada marka hore aad dhexdeysid inaad functionka access gareysid. object 2 hadana wuxuu sameynaa dot markii uu dhaho subtraction uu sameynayo soo maxan. subtractionka waxaa leenahay marka sameey functionka oo subtractionka uu waceynaa. hadda asagana howshiisa waa noo dhamaatay. labadii class ee driver classes objectiveskooda waan create gareynay, waxaan ku access gareynay. mid walba wuxuu access gareynaa ogow get value, sababtoo ah x y da intuusan isku darin ama intuusan kala jarin wuxuu rabaa inuu access gareeyo x y da qiimo in la siiyo marka hore, kabacdi inuu subtraction iyo addition ku sameeyo. programka waxaan leenahay compile, error hadduu jiro wax ildufnay. okay, programka inuu loo saxsan yahay waxaan leenahay compile, programka run. x y da classka koowaad ama driver classka koowaad wuxuu access gareynaa x value. marka waxaan leenahay tusaale ahaan 30 aan siinayna, y da qiimaheedana waxaan siinaynaa 10. waxaa inoo soo baxay addition of x and y 40 ay inoo soo baxay. x y da kale lagu weydiinaa saa ujeedid. markale kanna waxaa ku weydiinayo driver classka labaadka ku weydiinaa 30 ayaan siinaynaa isagana dhib malahan. 10 ayaan siinaynaa y dana uu kala jaraa 20 ay inoo soo baxda saa ujeedid. 30 iyo 10 marka la isku daro waa 40, 30 iyo 10 marka la isku darona waa 20, marka la kala jarana waa 20. marka labadan muxuu ahaa daato oo 40 iyo 20 waxaa soo saaray laba class kala duwan ee driver class. waxayna mid walba data ka access gareysay x iyo y da waxay kala access gareeyeen base classka ay ka access gareeyeen labadaas muxuu ahaa daato. sidaa marka waxaa ku sameysay waxa la dhaho hierarchical inheritance. sababtoo ah hierarchical inheritance-ga waxa uu yahay base classkan oo hal xaba ah ayaa waxa uu data siinaa ama waxa data ka dhaxlayaan laba class iyo wixii kasii badan. anaga hadda laba class aan qornay, driver class 1 iyo driver class 2 ga ayaan qornay. labadan class marka waa badin kartaa, 3 class 4 class waa ka dhigi kartaa oo muxuu ahaa base classkaas bis data ka dhaxlayaan. base classkaas oo jeedid hal muxuu ahaa class waxay ka dhaxlayaan muxuu ahaa datada. marka hierarchical inheritance qaabkaas la dhahaa. waxaa jirtay marka iyadana hybrid inheritance waxa la dhaho. hybrid inheritance waxa uu yahay waa nooc ka mid ah inheritance-ka. waa marka laba nooc oo ka mid ah inheritance-ga la isla isticmaalo. tusaale hadda hierarchical inheritance ay noo qoran. haddii aan sameyno class kale ama driver class kale haddaan sameyno
oon muxuu ahaa labadan class midkood wax ka dhaxalno waxaan isticmaalnay type kale ama nuuc kale oo driver inheritance-ga ah sidaas daraaddeeda waxaan isku combination ku sameynay combination isu geyn laba nuuc oo muxuu ahaa inheritance ka mid ah tusaale si aad u fahantid driver class-kan labaadka hadda koowaad ka soo qaadan kartaa aniga tusaale labaad ka soo qaatay driver class-ka labaadka ayaa waxaan rabaa inaan data ka sii dhaxlo asaga data ka sii dhaxlaa isagana wuxuu data ka dhaxlay base class-ka la socosaas base class-ko data ka dhaxlay kana data u dhaxlay driver class 1-ka base class-ka ayuu inheritance ku sameynaa labadooda base class-kaas ay inheritance ku sameynayaan laakiin aniga waxaan rabaa base class-kan driver class-kan labaadka inaan anigana wax ka sii dhaxlo oo information-kan result-iga ah aan ka sii qaato si aan u sameeyo concept-iga ah hybrid inheritance oo ah in laba types ila isla isticmaalo iyo wixii ka sii badan waan arki doonaa marka programka sameeyno class-aan sameeynaa marka tusaale class-kan waxa u bixinaa hybrid colon aan leenahay public oo muxuu ahaa feasibility ayaan isticmaalaynaa class-ka daatada aan ka dhaxlaayo driver class 2-ga waa ugu la soo marka kan meeshu base class-ka data ka dhaxlaayo aniga waxaan ka dhaxlaa driver class 2 ayaan data ka dhaxlaa okay waxaan leeyahay marka public ayaan dhaxdan muxuu ahaa ku qoraynaa okay hybrid kan ama class-ka wuxuu inoo sameynaa bis hal function oo inoo sameynaa function-kaas wuxuu inoo jeegaraynaa tusaale ahaan oo kale waxa aad u sahlan even iyo odd even iyo odd kan waxaan jeegaraynaynaa result-igan haddii la kala jaray labadan daato haddii la isku darana waa jeegarayn karnaa laakiin mid lay qaadanaynaa si program ah u fahantid haddii la kala jaro x iyo y-da result-igan wixii lagu store gareeyo inay even tahay iyo inay odd tahay inaad jeegaraynaa rabnaa tusaale waxaan leenahay haddii result-iga loo qaybiyo labo haddii la mid noqoto 0 result-iga haddii laba loo qaybiyo ee la mid noqoto 0 waxaan daawacaynaa message ah tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay result is even inaan dhaxno sababtoo ah 0 ee la mid noqotay haddii ay la mid noqoto waxaan 0 ahayn ama 1 ee la mid noqotana waxaan leenahay odd waay ama numberka waa odd ama numberkiisi ah inaan dhaxno inta waa inaan evenka ku bedelnaa odd inaan ku bedelnaa okay marka class-kan dheeraadka meesha kusoo darnay waxa uu inoo cadaynaa ama inoo sheegaa inaan anaga rabno data inaan ka qaadano class-kan driver class 2-ga ah ee asagana datada kasii dhaxlaayo base class-kii koowaadka result-iga uu soo saaro ayaan waxaa rabnaa inaan jeegarano even iyo odd waxa ay noqoto okay hadda marka maadaama driver class 2-ga class kale uu data kasii dhaxlay waxaan isticmaalaynaa object-igan hybrid-kan isticmaalaynaa oo class-kan isticmaalaynaa meesha object 2-ga ah driver class 2 waa ka bixinay object-igana 3 aan ka dhigay sababtoo saa u fahamtid macnaha in object 2 meesha laga bixiyey ujeedka aan ka leeyahay waxay tahay object-kan driver class 2-ga object-giisa waa bixiyey sababta u bixiyey waxay tahay isagii waxaa datada ka dhaxlay class kale class-kaas kale datada ka dhaxlaa isticmaalaynaa sababtoo ah meeshaas isugu tagaysaa wixii data ahaa marka object 3-ga isticmaalaa inta object 3-ga wuxuu si toos u access gareyn karaa base class-ka haddana wuxuu si toos u access gareyn karaa driver class-kii haddana wuxuu si toos u access gareyn karaa isagii datada ku jirta oo ahaa even iyo odd inuu jeegareeyo meeshaas aan la socdo marka driver class-ka muxuu ahaa hybrid muxuu ahaa meeshaan ku qoraynaa hybrid class hybrid saa u fahamtid object 3 aan sameynay object-igan waxaa iska leh driver class waxaa iska leh la dhaho hybrid class-kan ujeedkiisu waxa uu yahay wuxuu data kasii dhaxlay driver class 2 ayuu data kasii dhaxlay kaasoo data kasoo dhaxlayay base class-ka ujeedka waa inaad fahamtid muhiimadda waxa ay tahay programka ma ahan muhiimadda wax soo baxaya result-iga ma ahan ee waxa ay tahay datada si u kala gudbayso inaad fahamtid hierarchical inheritance-ga waxaan dhahnay hal base class waay base class-aa jiro kaasoo data siinayay laba driver class saa ujeedid driver class 1 iyo driver class 2-ga waay programkan aan yareen hal mar okay waa idii dhow muxuu ahaa fogeeyey si macnaha u aragtid classeska si u kala aragtid u fogeeyey waxaan rabaa inaad fahamtid hierarchical inheritance-gii oo hadda aad soo fahamtay wuxuu ahaa
hal base class سأوجد base class كان أيا وحدة سيناي driver class كان كواتك driver class كان كواتك يو driver class كان لباتك أيو data سيناي base class كان مركا hierarchical كاس على سببتو هل base class أيا وحو data سينا لبات driver class يوحي كسي بدونو data سينا waxaa kusoo darnay marka conceptiga marka waxaan rabnaa hybrid inheritance inaan fahanno maxaa la dhahaa asna class kalaan sameynay waxaan u bixinay hybrid u bixinay classka magaciisa hybrid u bixinay classkaas wuxuu data ka dhaxlay driver class 2 gu data ka dhaxlay driver class 2 gan asaga wuxuu data ka sii dhaxlaa base class ku data ka sii dhaxlaa sidaan waxaa ku sameysmayso hadaa xasuusatid multi level inheritance-ga soo dhigeenin multi level wuxuu ahaa base class ka wuxuu data siinaa driver class ka wuxuu data siinaa driver class kale ayuu data siinaa sidaas multi level ay ku noqonaysaa inta marka waxa ka sameysmay base class kan iyo driver class 2 ga iyo hybrid kan class kan kale waxa ka dhax sameysmay multi level inheritance oo ah nooc kamid ah inheritance-ga in class data uu ka dhaxlo mid kalena data uu muxuu ahaa siiyo ama laga sii dhaxlo multi level ku sameysmay haddii aad sidaan kale u fiirisid base class-ka driver class 1-ka driver class 2-ga u fiirisidna waxay noqonaysaa hierarchical inheritance noqonaysaa haddii aad programkan dhan isku fiirisid waxay noqonaysaa hybrid inheritance noqonaysaa marka ujeedku waa inaad fahamtid marka aan soo dhaweyno marka hybrid inheritance maxaa la dhahaa haddii lagu weydiiyo waxaa leedahay marka laba types la isku daro marka la isku combination gareeyo laba types oo kamid ah inheritance-ga labada types inheritance-ga kamid ah maxay tahay base class kan driver class 1 iyo driver class 2 gu data siiyay wuxuu noqonaa marka hierarchical inheritance oo sameysma haddii aad sii fiirisid base class kan driver class 2 gan iyo hybrid kan class kan kale wuxuu noqonaa asna hybrid inheritance sababtoo ah iyaga waxay sameynayaan multi level oo lagu combination gareeyay multiple inheritance-gana waxay hierarchical inheritance-gana waxay sameysmayso hybrid inheritance meesha ka sameysmayso waa inaad marka ujeedka fahamtid programka aan ka leenahay programkan haddii aan run dhahno inuu noo shaqeynayo in kale programka aan aragno waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale isku dar labada daato muxuu ahaa 40 ay noo soo baxayso laakiin marka la kala jaro daatada maxaa soo baxaysa fiiri tusaale ahaan oo kale 30 iyo 10 aan siinayna sidii 20 even waa subtractionka 20 noo soo baxayso even waa waxa la jeegareenahay 20 kaas waa marka lan ku celinayna inuu odd soo baxaysaan fiirnayna waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale tan waxaan siinaynaa 30 iyo 10 kana waxaan siinaynaa 31 iyo 10 okay سأوجد لاتي كوا صباح ريساتي أو دواي الله مرة بريساتي أو حجة جريناي driver class 2 أيو جريناي مركا كنا وحسمي اسمه driver class 1 كا أصلاً إسكودر بيسو سميناي driver class 2 كان وحسمينا كلاجر وحنا داتا سينا driver class كلا أيو داتا سينا أصلاً وحجة جرينا أودي even متكو يا لاتي كوا وأو دوا مركا program كان وإنا فهمتين مركا لان ريس أم كسو علنا محوها information كا waxaan sameynay laba types oo isku jiro oo muxuu ahaa ka tirsan inheritance-ga mid waa hierarchical inheritance midna waa hybrid inheritance xagga iska dhig hierarchical inheritance faham marka hore waa hal base class oo data ay ka qaadanayaan laba driver class iyo wax ka sii badan driver class 1 driver class 2 sidaas marka waxaa ku sameysmay hierarchical ku sameysmay hybrid inheritance artayna fahamtid maxaa sameynaysaa haddii hierarchical inheritance-gan aad ka dhex samaysid isagaa ka dhex sameynaysaa multi level inheritance ka dhex samaysay oo class kale ku soo dartay wuxuu noqonaa marka wuxuu isku noqonaa inheritance-gaas in wuxuu isku wada noqonaysaa hybrid isku wada noqonaysaa hybrid-ka shardi ma ahan in laga dhex sameeyo hierarchical-ka bis in laga dhex sameeyo maaha haddii single inheritance iyo multi level inheritance isku dartid waxay noqonaysaa hybrid multiple inheritance iyo haddii isku dartid multi level inheritance waxay noqonaysaa hybrid wax kale ma ahan laba types oo kamid ah inheritance marka la isku geeyo ama hal meel lagu isticmaalo waxaa la dhahaa hybrid marka halkan base class wuxuu data siinaya driver class kan 2 kana data siinaya kana waxa data uu ka sii dhaxlay ama uu siiyay hybrid kan oo class kale ah muxuu ahaa asagana ka sii qaatay meeshaas maxaa ka sameysmay hybrid inheritance ka sameysmay
objectigaana sidaan u kala sameynay oo classeska muxuu ahaa kala leeyihiin mar walbana waxaan access gareynaynaa base classka si datada muxuu ahaa aan rabno userka looga qaato kabacdina aan operationka aan rabno aan ugu sameyno meeshaan typeska inheritance-ga noogu samaysmay haddii aad fahmin ama su-aal ay ka jirto program kale ka sameynaynaa qaybta commenteska noogu reebeysaa wax weyn maahan problem maahan waxaan usii gudbaynaa marka cashiradeenii kale inheritance meeshaas uga baxnay waana ku dhex jirnaa oo maahan inaan si toos uga dhex baxnay laakiin typeskiisa meeshaas inoogu dhamaaday qaybaha xiga waxaan usii gudbaynaa polymorphismka iyo functionkii friend function iyo sida loo isticmaalay meeshaas ayaan ku sameynaa wabillahi tawfiiq